waxaa ilaa haatan banaanka yaalin Ethiopian ah kaasi oo lagu dilay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud sababta rasmiga ah ee dilkan ka dambeeyay ku haya balse intaan u guda galin warbixintan oo dhameystiran waxaan ka codsanayaa inaad ka mid noqoto saaxiibada gaarka ah ee boggaan kala socon doona xogaha deegaanka aadna falow dhahato beejkayga King Suryaan aadna sii shargareeda muuqaalkan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa saaka lagu dilay nin Ethiopian ah kaasi oo kamid ah dhalinyarada Ethiopian-ka ay ka shaqeeysta degmada Gurceel si ay ugu dhoofiyaan dalkooda Ethiopia kadibna loo warshadeeyo jaqafyadan halka mid kalena dhaawac culus oo soo gaaray waxaana dilkan geystay sida la xaqiijiyay qof shacab ah oo ka cariisna jaqafyo iyo biro ay kala soo baxeen qabriga hooyadiis laamaha amniga ee degmada Gurceel ayaan haatan ku sugan goobta dilkan uu ka dhacay oo ahayd halka ay ka degan yihiin degmada oo alaabahan ku arursan jireen sidoo kale laamaha amniga ayaa inoo xaqiijiyay inay ku raajoogaan shakhsiga ka dambeeyay dilkan adiyahan maxaa sameyn leedahay hadii qof shisheeye ah dalkana sharci aan ku joogin hadii uu qabriga waalidka kala bixi lahaa astaamaha lagu aqoonsado nala wadaag aragtidaada muuqaalkana shii sheer gare